بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميالك بارلمانك فدرالك الصومالية رئيس الوزراء كحجينك قدومية كحجينك مدحوينياشا دولة الجبلية الصومالية مدحوينياشا هوري رئيس الوزراء ياشا هوري قدومياشي بارلمانك هوري dadkii inta iimaanayo dhan gudoomiyalka baarlamaanka waa ka tagayeen marka waxa ii muuqatay inaysan culays ku haynin oo aysan u tirsanayn oo cid ay ku hartay allaga unay tahay marka gudoomiyalka hore baarlamaanka golaha wasiirada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada beesha caalamka شعبك أنت كسوق بقول مناسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام رمتي مناسبة دان iyo farxadan galabta aan inta isugu nimid oo shirkii muddada soo socday looga loogana guul gaaray inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muhiimadda shirkan iyo munaasabadan waxay ahayd communiqueegii uu noo akhriyay wasiir ku-xigeenkii warfaafinta waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlayay mustaqbalka Soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo waqtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxa Ilaahay nagu guuleeyay maanta wixii la soo maray waa la soo maray maanta inaan gabagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay marqaati ka yihiin annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambana dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna uu u fulay haddii Ilaahay yiraahdo annaga haddaan nahay isteediyada dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro Soomaalinimo ku jiro turitaan ku jiro tanaasul ku jiro ka warqab iyo u turis shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto yaa waxaan u qaadanay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu haboon oo maanta dalka Soomaaliya uu doorasho ku gali karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyay sidii loo fulin lahaa waxaan idinka ballan qaadaynaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhan u ballan qaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doono dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan nin kasta oo Soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranayo iyo kan wax dooranayba uu cadaalad iyo amni uu heli doonaan ka shaqayn doonaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii dawlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isu keenistiisa inta ayaan u mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh